يدريدو مرة لو حساب تمو مسؤول ولي معلمتيسو وحمل كتابا معاني قرار لو ما سيا تاريخ مكور تغا مرولي باحوستا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu Axmed Faarax Cumar oo aan ka mid ahay dhalinyarta ka shaqeysata magaaladan Suuq Mugdi oo harqaanleyda ah kuwaasoo group isku xiran aan ahnay alxamdulillah waxaana dhalinyaro isku xiran oo group ah oo midaysan oo harqaankan ka shaqeysanaa alxamdulillah biilkaana waan ka helnaa reerkaana waxaan ka biilanaa guriga kirada alxamdulillah waan iska bixinaa wax maanta oo cabasho kale oo dhanka reerka aan ka tabanayno malaha alxamdulillah waan isku filnaa ilaahay wuu nimcayay maanta meeshan aan taaganahay iyo heerkan aan taaganahay ilaahay baan gaarsiiyay laakiin ilaahay ka soo waxaan gaarsiiyay walaalkan aadan bare aan garab qabtay walaalkan aadan bare ilaa iyo meeshan maanta oo heer na soo gaarsiiyay aan reerkaanagi iyo cidaanadii heer aan ku filnaanuna soo gaarsiiyay khayr Allah siiyo wiilkan walaalkaanaga waxaan ka soo baxay aniga meeshan Nasimaho oo wax ku soo bartay meeshaas harqaan liiga soo siiyay harqaankii aan Suuq Mugdi la soo galay harqaankii Suuq Mugdi waan iskaga shaqaystay tu yar ahayd waan iska gaday markaan gaday haddana tu kalaan soo gatay alxamdulillah heer ba heer saan u sii gaaray waa ka maanta meeshan aan joogaa harqaankan aan ka shaqaystaa biilkayga reerkayga alxamdulillah reeraan leeyahay caruuraan leeyahay kulli reerkayga ciideeda ana ku filan maanta ana u shaqeeyaa harqaankan ana ka shaqaystaa meeshan aan taaganahay waxa soo gaarsiiyay walaalkay aadan bare waxaana taa oga hayaa mahad weyn oo inaba aan la koobi karin isagana waxaan leeyahay khayr Allah siiyo meel walba aad joogtana ilaahay gaal iyo muslimba ilaahay ku cabidiyo walaalkan waaye waa walaalka maanta magaalada Gaaris ninka kali ay ku tashtaan waay waa ninka kali ay maanta magaaladan Gaaris haddii la dhaho ninkee xildhibaan wax idin qabtay halka nin oo magaciisa la soo sheegaa waa aadan bare khayr Allah siiyo ma sha Allah waa ninka kali ee mar walba haddii la dhaho Suuq Mugdi waa la duminayaa ninka xabadka noo qaraacdo aadan bare ninka naga hor istaago wax walbo waa aadan bare ma sha Allah khayr Allah siiyo ninka waa nin walaalkaana aad baana u jecelnahay isagana wuu jecel yahay maadaama aan ahay shacabkiisii oo isaga soo doortay oo kuuraha isaga aan siino anakoo badan hadda ka hor oo harqaanliyo badan waan u tagnay isaga inuu xasuusiyo u maleynaa heshimiwa aadan bare markaasna fikrad aan ka soo dhaxlay maalinta iyada oo uu isaga noo sheegay ayaa waxay ahayd anakoo badan oo almost gaarayno 50 dhalinyaro yaa u tagnay heshimiwa wuxuuna dhahay sidan aad ku socotiin si oo waa laga yar haboon yahay waxa iska dhigteen inta is yar qaybsiin group iska kala dhiga oo 15 qof 16 qof isu kala qaybiya group iska dhiga rag isku midanaysan iska dhiga kadib waxa sameeyo waxa furatan accounti lacagaha uweesooda kale ee hadhow waa qaadan kartiin ma sha Allah maadaama hadda aan lacag uweeso aan u soo baahanin laakiin hadda groupka anaga ana chairman u ah ana hadda waan soo hagaajinay waxaan ahay 16 qof ma sha Allah 16 ka qofna waxaan ahay rag u taagan inay isgarab qabtaan dhalinyaro waxa jiraan badan oo aniga harqaan aan sii baray oo maanta magaalada Gaaris ka shaqeystaan koow ma aha laba ma aha saddex ma aha dad badan oo harqaan aan baray jiraan waxaan u baray ilaahay dartiis iyo inay
dad bil'aadina ay ka kaaftoomaan waxaa jiraan dhallinyaro oo maanta magaalada badanaa way jiraan dhallinyaro aan shaqaysayn oo meelyago iska socdaan dhallinyaro markaan aragna annaga waan waaninaa waxaan dhahnaa san idiinma fiicno kaalay noo imo annaga harqaanaan ku baraynaa shaqayso shilinna kama rabno ilaahay dartiisaan u barnaa intaasna waxaan dhahnaa mar walbana waxaan dhahnaa annagaba maanta heerkan waxaana soo gaarsiiyey walaalkan aadan barre oo lacag CDF nooga bixiyey simaaho lacag nooga bixiyey harqaankii aan ku soo barannay fikraddii aan barannay waxaan rabnaa inaan faafinno oo walaalada kale ee muslimiinta ah ay ka faa'iidaan ooy wax ku qabsadaan ooy reerahooda ku dhaqdaan dhallinyaro badan aan bare oo waxaa jiraan hadda maanta magaalada Gaaris ka shaqaystaan dhallinyaro waxaa jira aan reer intaan lacag intaan soo dardarnay reer u dhisnay alxamdulillaah maanta isku filan dhallinyartaas waxaan rabnaa hadda dhallinyarta hadda kadib soo kacdana waxaan rabnaa mar walba sidii kuwii hore aan u garab qaban jirnay inaan mar walba aan u garab qabanno walaalkaana waxaan rabnaa dhallinyarta ku nool magaalada Gaaris oo dhan ani ahaanteedii kaliya xataa iskama hadlaayo dhallinyarta Gaaris ku nool oo dhan horta in badan wuu garab qabtay alxamdulillaah khayr allah siiyo maasha allah walaalkeen wuu barakeysay ilaah barkeeyo intii kaleeta hadduu nool yahayna wuuba garab qaban intuu uu joogo isaga laakiin dhallinyarta maanta waxaan ku boorinayaa inay isgarab qabtaan oo rag isku midaysan noqdaan oo rag walaalo iscaawinayaan noqdaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed guhaad buraale waxaan ahay dhallinyarta wax ka soo barteen simaaho oo haddana ka shaqaysto suuq mugdi harqaanleyda magarata marka waxaana ka biishaa reer alxamdu alshukru waana ku nimcaysanahay maadaama oo aan ka soo barannay simaaho taa ayadana ilaahay ka sukow waxaan u mahad celinaynaa aadan barre ayaana soo garab qabtay tan kaleeto haddana aad baan ugu ladanaa harqaanka suuq mugdi baana ka shaqaysanaa alxamdu alshukru waxaan u mahad celinaynaa ilaahay ka sukow walaalkeen aadan barre oo na soo garab qabtay xagga waxbarashada naga soo saacideeyey simaaho tan kale haddana farsamadii aan xagga ka soo barannay ayaan ilmaha ku biilanaa waalidiinteen ku biilnaa aad baan ugu intifaacnay alxamdu alshukru waana ladannahay tan kaleeto maadaama uu walaalkeen aad noo soo garab qabtay haddana waxaan ka codsanaynaa in micnihii dhallinyarta soomaaliyeed oo aad u dandaraysan oo shaqola'aanta ah haddana siduu annaga noo soo garab qabtay si kasii fiican ayaan usii garab qabannaa harqaanka waan barnaa intaasoo dhallinyaro ayaan kicinnay oo feeroolayaal noo ah kadibna micnihii haddana kadib markii cabbaar feerada ku jiraan haddana harqaanka aan sii barnaa oo ilmo kasii biisho waalidiin wax uga sii diro marka aad baan ugu mahad qabnaa walaalkeen aadan barre wabilaahi tawfiiq thank you very much السلام عليكم مقعي وآدم عمر وحرقان قصة برتسماها وحقعان نوسي آدم برد على الحمد لله برشيدي أن كبرنا وين تفاع وكان وقرسوني إلمان كدلنا هذا ما نكوش خيسنا ما هذا إليه كسر أساس كله هذا الأسان قرب كسر إنه حكى لنا قبت نقول سوق مقدر نيران دان بدنا مجورة أساس نقع قبتي مش إني هذين نقطة هذي أم سوق بدي هذا النقطة نكلي أنسوينا نهار اللي أساس بحكي قرب تاعنا وأينا وديار يعني هذا واحد نقع قبته آدم برد على هذا الأساس كسوينا بسم الله الرحمن الرحيم مقعد حسن محمد شاع عبد الله وحانا هاي دنيرada suuq mugdi ka xamaalatay sharqan leeyda alxamdulillah waxaan ahay dhalinyaro ma taqaanay xoogooda maala ilaahay ka sokow ilaahay baa nagu nimceeyay magaalada anaga amaanan joognaa wax dhiba kuma qabno marka sidaadaba dhalinyaro marka tahay waxa way waxaad iska jeceshahay horumar iyo ma taqaanay shaqo mar walba shaqadaada inay hore u socoto alxamdulillah reeraan ka yeelanay waan ku deganahay ilaahay baa nagu nimceeyay marka meeshan waa iska Afrika oo ma taqaanay waxaad wax hore u sii socdo ma noqon waa iska biilka anagana waan haysanaa marka xaalkana waa iska sidaas marka kulli waxaan jeclaan lahayn dhalinyarada reer Gaaris hadaan nahay sharqaan leeyda
inay nala ogaado muhashimuwa uuna ogaado marka waxaan jeclaan lahayn inay garab nala siiyo annaga waxaan nahay dhallinyartii deegaanka meel aan u soconno mala dhulka annaga baan iimaansanaynaa marka waxaan jecel lahay inay garab nala siiyo oo mashiimo naloo gado oo hadda aniga xabadda baan iskaga xamaashay alxamdulilaah 35,000 baa laga gadaa waqti dheerna waan ku xamaalanahay haddee cidka oo saaciidaynaysana ma jirto iyo waxa iyada mataqaanaa wax dowladda ku saaciiday ma jirto marka anaga xaalkana waa sidaas marka muhashimuwa waxaan ka codsan lahayn inuu na caawiyo dhalinyarta uu suuq mugdi u caawiyo uu hoos u fiiriyo dhalinyarta suuqa ku jirta waa dhalinyartii mataqaanaa ee mustaqbalka marka badanna anaga dhan waxa waaye rag iskuulahay soo wada bogeyn baan nahay camal kale oo qabanayno ma laha sharqaamahaasan mataqaanaa iskaga mashquulay oo mataqaanaa waqtiga anaga aan siinay maadaama jaamacadii wax naga sii bixiyo aan haddana aan haysanin